wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xalay casho sharaf u sameeyay wasiirada amniga maamul goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya maalmahan shir uga socday magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlayay mideynta isutaga booliska Soomaaliyeed iyo maareyntiisa iyo tayeenta kulankan oo lagu qabtay kumaanda boolis iyo taliska booliska waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiil sarsare waxaana kulankaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bashiir Cabdi Ahmed waxa taliska ciidanka booliska sharaf u ah in aanu martigelino martiqaadkii uu sameeyay wasiirka amniga inaan ku soo dhaweeyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed in aan ku soo dhaweeyo madaxda ka timid ee booliska dowladda ka timid inaan ku soo dhawaado xaruntiina ciidanka booliska waxaan kaloo uga faa'iideysanayaa kaliya waxa weeye wixii booliska laga sheegi lahaa waxa sheegay gobolada heegan waxaan u taaganahay waxaan qabanno iyo waxaan sooynaba waxaan rabaa kaliya inaan iraahdo ammaan iyo bogaano soo jeediyo dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan halkan aanu u nimi shir ballaaran oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya ay si wada jir uga wada qayb galayeen oo ahaa barnaamijkii Joint Police Program barnaamijkaas oo si wanaagsan oo qurux badan ku dhamaaday qaybihiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad qaybo kalena ay hareen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan uga faa'iideysanayaa munaasabaddan in amniga meel looga soo wada jeedsado aad baa u mahadsantihiin waxa kale oo idan farxad leh in wasiirka iyo wasiirada heer dowlad goboleedba qorshaha iyo istaraatiijiyadda ay muddo soo wadeen oo hadalkan sidii security architecture-kiisii loo dhaqangelin lahaa iyadoo ay jiraan caqabado haddana waxaa muhiim ah isku xirkiina iyo wada shaqayntiina haddaan si goon uga hadla magaalada Muqdisho jidadka xiran sababay u xiran yihiin maahne anaga jidadka dhamma wada xirin qaybo yaraa jirto oo laga soo galay jidkan wadnaha checkpoints la dhigay checkpoints waa la baara maana maahan in wadada ay xiran tahay marka dadku waxaan ka codsan lahayn marar badan ka codsada shacabka Soomaaliyeed inay dulqaataan inta yar ay safarka baawarka ku jiraan ama inta yar ay joogaan haddaan tusaale soo qaatay magaalada Nairobi haddaad tagtaan ama Dubai waxaa dhici karta in qofka zixmada ama traffic uu ku jiro muddo saacad in ka badan asagoo waxna baaritaan ay la ka socon marka amniga soo wax ugu miibsan la badbaaji waa naf bini aadan ah Amira Sheekh Kashka Royal TV Muqdisho.